السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan bilaabi doonaa casharkeeni koowaad ee ku saabsan isirada ama factorieska. Isiradu kulay marka hore waxay ka mid tahay xisaabaadka asaasiga ah ee ardayga looga baahan yahay marka uu baranayo xisaabaadka. Marka aad soo dhaaftid u qaybinta marka soo dhaaftid waa inaad waxun ka garanaysid weeye casharadan sida shayga markii la raadinayo faraciisa ama isirkiisa. isirka marka la dhahayo shaygan waxa weeye meelaha uu ka yimaado weeye sida ilmuhu hooyo aaba uga yimaado sidaas oo kale buu lambarkuna meel buu ka yimaadaa. Marka hadda waxaan tusaale u soo qaadanay saddex number ba soo qaadanay waa lambar 4 lambar 6 lambar 12. marka 12 ka sii ku yimi markii xisaabaadkan eegno tusaale ahaan oo kale macalinka wuxuu ku weydiin karaa sheeg isirada uu ka soo jeedo lambar 4 ama faraca lambar 4 qor. marka faracida marka qoraysid waxa jira habab badan oo aad ku sameyn karto ama aad ku soo saari karto faraca ama isirka lambarkaas la weydiiyay. lambar 4 oo kale waxaan ku soo saari karnaa inaan table-kiisa ama table-ka qofka isku dhufashada yaqaan waa muhiim inaan marka hore aad u taqaanid ama aad ku dusha uga hayso table-ki ama chantuski isku dhufashada. marka lambar 4 inaad tirooyinka uu ka imaanaysa ka ogaato waxa sameyn kartaa inaad table-ka qorto ama inaad qaab u isticmaasho oo qaybin ah. oo qaybintaasna waxa la rabaa inuusan hara u soo harin oo eber noqdaan. tusaale ahaan oo kale waxaan rabaa inaan lambar 4 isirooyinka ku soo jeedo inaan qoro. labada hab baan u maraynaa. marka hore waxaan sameyn karnaa inaan sameyno table-kiisii isku dhufashada inaan sameyno. oo tusaale ahaan oo kale inaan dhahno hal lagu dhuftay 4 waxay la mid tahay 4. tiradaas hadda marka hal ku dhufano tiro walba markii hal lagu dhufto isla ayada soo baxaysa taa aad baa xasuusanaa qofkii aan soo dib u soo indheeyay casharadii hore ee isku dhufashada hal lagu dhuftay 4 waxa lagu heli karaa 4 baa lagu heli karaa. sidoo kale waxa sameyn kartaa inaad dhahdid hal lagu dhuftay xaqooda 4 lagu dhuftay 2 isaguna wuxuu noqon karaa 8 buu noqon karaa. hadda sa u sii wadid marka hore halkan in 4 hormarnaa la rabay 4 lagu dhuftay 1 waa intii 4 lagu dhuftay 1 maxay noqonaysaa waa 4tii. marka hadda sa u sameysina waa ku saari kartaa laakiin wax badan ba ka dhiman oo waxa ka dhiman tirada kale lagu heli karo oo markii tiro lagu dhufto wax kamid ah 2 lagu dhuftay 2 Soomahan ayadan wax soo saaraysaa 4 bi soo saaraysaa. macnaha chantuska u mari kartaa markaan dhahayo kama wada in tiradii ayadoo dhan isticmaalaysid laakiin tirooyinka waxa dib u fiirinaysaa chantuskii isku dhufashada tirooyin badan oo mataqaana keenay inay jiraan in kale. tusaale hadda waxa keenay laba tira keenaysa 4 waa 4 lagu dhuftay 1 ama 1 lagu dhuftay 4 isdamari waa sumidkii oo waxay soo baxaysaa 4 iyo 2 lagu dhuftay 2 oo ay soo baxayso 4. sidoo kale aad sameyn karto waxa weeye inaad 4tii gudaha geliso oo hal u qaybiso oo aad dhahdid hal tiro marka lagu dhufto 4 keenaysa waa tirade dabcan waxa keenaysa 4 marka ku dhufano wax noqotay 4 laga jarayna waa eber. marka hadii tirada eber soo baxdo ama haraalaan uu noqdo waxay ka dhigan tiradaas dhameystiran ay u soo saaraysaa tirada kale ama wax u tahay isna oo farac buu tahay. haddaan 4teed sidoo kale dib u gelino oo aan 2 u qaybino 2 markii tiro lagu dhufto 4 keenaya waa tirade waa 2 lagu dhufto 4 laga jarayna waa eber. marka tirada maxay u tahay 2na waxay ka mid tahay labada waxay ka mid tahay faraca ama isirada lambar 4. bal ka soo qaado kale 4 baan gelinay waxa u qaybinaa 3 marka u qaybino tiro 3 marka lagu dhufto 4 keenaysa si toos ah ma jirto maxaa ugu dhow hal ba ugu dhow 3 hal lagu dhufto waa 3 4 laga jarana hal haraagu hal buu noqo tiradan haduu haraa u hal uu soo haro bis way iyo wixii ka badan macnaha waxan Ibrahim hadii meesha ka soo muuqdaan maadaama halkan hal haraa uu jiro tiradan ma noqonayso isirada ama faraca ma noqonayso lambar 4. hadda tiro kale gelisanna sidoo kale la mid weeye marka tirada waxa la rabaa tiro aan haraa u soo harin oo eber noqonaya ayaa loo baahan yahay. hadda lambar haddaan fiirino lambar 6 oo kale 6 qofkii xifdisan chantuski isku dhufashada
dabcan waxaan xusuusan karaa hal lagu dhufto marka hore tiro walba oo hal lagu dhufto saan soo sheegnay waxay keenaysaa isla tiradii hal lagu dhuftay hal waa halkii hal laba lagu dhuftay waa labadii hal saddex lagu dhuftay waa saddexdii hal lix lagu dhuftana waa lixdii tiradaas qofkii xifdisan wuu soo saarayaa sidoo kale tirada kale uu soo saari karo waxaa weeye laba lagu dhuftay saddex ama saddex lagu dhuftay labo isdabamar waa isku midkii ayadana waxay soo saaraysaa lix bay soo saaraysaa marka labada tiro ayaa waxay kaliya soo saarayaan macnaa saddex lambar baa keena saddexda lambar uu leeyahay lambar lix maxaa weeye waa hal labo iyo saddex saddexdaas ayaa waxay noqonayaan faracyadu ka imaado hal waa iska halkiiba micno badan ma yeesho laakiin laba iyo saddex waxay ka mid yihiin faracyada ama isarada uu leeyahay lambar lix ayay ka mid noqonayaan sidoo kale tabtina ku saari kartaa inaad dhahdid lix gudaha geli hal hadduu banaanka suran yahayna de si loo keeno lix waad dul saaraysaa lix laga jarayna waa zero sidoo kale haddaad fiirisid lix gudaha geli laba u qeybi laba tiro lagu dhufto oo lix keenaysa maxaa weeye waa saddex laba saddex lagu dhuftay waa lix markii lix laga jarana maxaa soo baxaa waxaa soo baxaya eber baa soo haraya oo haraama noqonayso haddana lix aad gudaha geliso oo saddex u qeybiso saddex markii tiro lagu dhufto oo lix keenaysa waa tiradee weeye waa labo soo maahan labadii ayaan saarnay lix laga jarayna maxaa soo baxay eber baa soo baxay bal hadda aan fiirino afar baan ku fiirina afar bal afar haddaan lixa u qaybino bal maxaa soo baxaya afar tiro lagu dhufto lix keenaysa ma jirtaa ma jirto haye maxaa tirada ugu dhow haddaan eegno dee hal baa ugu dhow afar lagu dhufto hal waa afar sababta haddaan afar laba halkan dul saarno sideed ba noqonaysaa meesha lix bay ka badnaanaysaa mar walba oo tiro u qaybinayso waxaa rabaa tiradaa tiro u dhow oo ka yar baa la rabaa ama la eg laakiin tiro ka weyn taas ma noqonayso marka tirada ugu dhow ee lix keeni karta ma jirto maadaama aysan jirin tirada ugu dhow soo dhaweyn karta waa hal lagu dhuftay afar waa afar lix afar laga jarayna waa labo haraaba intaa noqota haraaga hadduu tirada soo harna si dhammaystiran uma qaybsamayso macnaa isarada shayga tiradaas kama mid ahan ayay ka dhigan tahay lambar 12 isagana haddaan eegno 12 tabtii hore kusoo saari kartaa kow hal lagu dhuftay 12 inaad dhahdid waa 12 laba ma keentaa laba lagu dhuftay lix ayadana waa 12 sidoo kale maxaa keena saddex lagu dhuftay shay ma keena saddex lagu dhuftay afar ayadana waa 12 afar ma keena isaguna afar ma keeno marka inta tirooyinka keena waxaan ku ogaan intaas inay noqdeen sababta haddaan tirooyin kale 5 ma keento ma keeno mataqaanaa sidoo kale ma keenaan lambar 6 iyo waxaas ayaduna 6 way keentaa oo lama lagu dhufto laakiin 7 iyo 8 iyo ayaguna ma keenaan marka sida horena ku saari karnaa oo ahaa inaan dhahno 12 gudaha gelino oo aan xakan u qaybino laba ama u qaybino ama saddex aan u qaybino ama afar markaas haraaba soo haray tusaalahan hada saddex baa noo taala saddex markii tiro dhufto 12 keenaysa waa tiradee waa afar saddex afar lagu dhufto waa 12 laga jarana waa eber baa soo baxaysa marka sidaas inoo noqonaysa ilaahay idinkiis casharo kalena ayadana waa bilaabi doonaa indhaweed casharadii dib maan u bilaabin insha Allah markii waqti loo helo chance loo helo ayaan casharadaasna ku dari doonaa insha Allah